Waalidnimadu waa mid ka mid ah hadiyadaha ugu qaalisan nolosha, balse lamaanayaal badan ayaa maanta la tacaalaya dhibaatooyin xagga uur-qaadista ah. Inkasta oo dad badani ay u maleeyaan in dhibaatadu ay u badan tahay dhanka dumarka, xaqiiqadu waxay tahay in boqolkiiba 30 ilaa 40 kiisaska dib u dhaca uurka ay ka yimaadaan dhanka ragga. Muuqaalkan waxaan ku eegi doonaa 5 shay oo si aamusan u dila bacrimintaada adigoo dareemin iyo xalka dabiiciga. Waa Nacfi Media inagu soo bir haddii aad nagu cusub tahay like garee muuqaalkan nala joog ilaa dhamaadka muuqaalkan. Haddaba maxaa saameeya bacriminta dumarka haddii aan dumarka ku hormarno? Bacriminta dumarka ama fertility-ga dumarka waxay ku xiran tahay isku dheelitirka hormoonada iyo caafimaadka ugxan-sidaha. Waxaa jira wax la yiraahdo PCOS, cilladaha ugxan-sidaha. Waa cillad hormoon oo keenta in ugxantu aysan si joogto ah raalli ahaada aysan u soo bixin. Waxay inta badan la xiriirtaa iska caabinta insulinta. Caafimaadka tuubooyinka ayaa ka mid ah waxyaabaha bacriminta dumarka inta badan dib u dhigo ama hoos u dhaca bacriminta dumarka ka qayb qaato. Waa fallopian tubeska. Haddii tuubooyinku ay xiran yihiin, shahwada iyo ugxantu ma kulmi karaan. Da'da ayaa ka mid ah. Bacriminta dumarka waxay bilowdaa inay hoos u dhacdo wixii ka dambeeya da'da 35 sano jirka, maadaama tirada iyo tayada ugxantu ay yaraato. 2. Maxaa saameeya marka bacriminta ragga? 1. Waa tayada shahwada ragga waa furaha koobaad ee uur-qaadista. Heerkulka. Xubinta taranka ee ninku waxay u baahan tahay heerkul ka hooseeya kan jirka. Isticmaalka joogtada ee biyo kulul ama laptopka oo dhabta la saarto wuxuu daciifiyaa shahwada. Waxaa ka mid ah varicocele, waa bararka xididada dhiigga ee xubinta taranka, taasoo keenta in dhiigga uu ku ururo heerkulka xiniyaha korna uu kaco, waxa loo yaqaan galaha. Dabeecadaha nololeed ayaa ka mid ah lifestyle issues. Cabista maandooriyaha iyo buurnida xad-dhaafka waxay hoos u dhigaan dhaqdhaqaaqa shahwada ama sperm motility. Haddaba sida dabiiciga ee loo kordhiyo fursadda uurka. 1. Waa fahamka xilliga ugxan-sidinta amaba xilliga ugxan-siinta ama ovulationka waxa loo yaqaano. Waa 12 ilaa 24 saacadood oo kaliya bishii marka ay ugxantu soo baxdo. Aqoonsiga xilligan badanaa bartamaha wareegga caadada waa muhiim. Mid xigto, folic acid. Dumarka qorsheynaya uurka waa inay qaataan folic acid si looga hortago dib u dhaca dhalmada iyo kor si loogu qaado tayada ugxanta. Tan xigto waa cuntada. Cunista qudaarta ama fruitka waxay faa'iido weyn u leeyihiin labada dhinac. Miisaanka iyo stresska. Miisaanka aadka u yar ama aadka u weyn wuxuu khalkhal geliyaa hormoonada. Sidoo kale walwalka joogtada wuxuu maskaxda u diraa calaamad oranaysa hadda ma ahan waqti ku habboon taranka, taasoo joojin karta soo bixista ugxanta ama hoos u dhigi karta awoodda galmada ee ninka. Gunaanud. Caafimaadka taranku ma ahan wax laga xishoodo, waa qayb muhiim oo ka mid ah nolosha bini'aadamka. Haddii aan qaybaha kale aan isla sii eegno, hurdo la'aanta iyo jadwalka qasan waxyaabaha inta badan hoos u dhiga ugxanta isla markaana aan yareeya fursadaha uur-qaadista. Hurdo kugu filan oo aad hesho waa aasaaska hagaajinta hormoonada taranka. Marka qofku uu si joogto ah u seexdo goor dambe ama uusan helin hurdo tayo leh, hormoonka melatonin oo muhiim u ah tayada ugxanta iyo shahwada uu yaraadaa. Testosteronka ragga hoos ayuu u dhacaa. Wareegga caadada dumarka aad bay isugu qasmataa. Haddaba xalku waa in aad seexato inta u dhaxayso 7 ilaa 9 saacadood habeenkii. Ka fogow telefoonada iyo shaashadda ugu yaraan 1 saac ka hor hurdada. Samee jadwal hurdo oo joogto ah. Xilli waqti siman seexo, isku waqtina soo kac. Kiimikooyinka qarsoon ee nolol maalmeedka oo ay ka mid yihiin saabuunta carafta badan, kareemada jirka inta badan qaarkood loo isticmaalo, caaga lagu kululeeyo cuntada, dhammaanba waa lala xiriiriyey in ay aad u carqaladeeyaan hormoonada taranka. Xalka dabiiciga waa inaad isticmaasho saabuun iyo saliid dabiici ah, inaad ku kululeysan cuntada caag,
in aad isticmaasho galaas ama bir. Haddaba caabuqyada hore ee aan la daaweynin, caabuqyada hore ee galmada xitaa haddii calaamad la'aan caabuqyadaasi aad dareento, inta badan waxay saameyn karaan inay xidhaan tuubooyinka dumarka, inay hoos u dhac markaasi ay ku timaado shahwada ragga. Caabuq qarsoon oo carqaladeeya bacriminta ayaa jira. Xalku waa in qofka baaritaan caafimaad oo joogto ah uu sameeyo, inuu daaweyn dhammaystiran uu qaato, ama lamaanuhu ay qaataan daaweyn dhammaystiran marka ay timaado iska daweynta cudurka infekshanka kaadi mareenka, UTI, iyo infekshanada kale ee xubinka taranka dumarka ku dhaca. Haddaba xalka dabiiciga waxaa ka mid ah in qofka nadaafad sax ah uu la yimaado, maadaama cudurro badan ay ka dhashaan galmada. Nafaqa yarida ama micronutrient deficiency xitaa qofka oo cuno cunto badan wuxuu yeelan karaa nafaqa yari, sida zinkiga oo muhiim u ah shahwada oo hoos u dhacda, vitamin D-da oo muhiim u ah ugxan-sidinta ayaa ka mid ah waxyaabaha inta badan loo aaneeyo nafaqooyinka dhinaca faytamiinada iyo mineralada jirka oo hoos u dhigo fursadaha uur qaadista. Omega 3 tayada hormoonada ayuu kobciyaa. Xalka dabiicigu waa inaad cunto kalluun, lows, raashin badan aad cunto, gaar ahaana cuntooyinka nafaqadu ay ku badan tahay. Sidoo kale in aad qoraxda vitamin D-ga aad qaadato, isticmaal cuntooyinka aan la sifeyn ee whole foodka loo yaqaan. Haddaba waxyaabaha badan ee jaaniska siiya haweenka iyo ragga xagga uur qaadista ee galmada markay timaado, haddii aan isla eegno waqti ahaan, waxaa muhiim ah qofka in uu markaasi gaar ahaan jadwalka galmada marka laga hadlayo, gaar ahaan lamaanaha baadigoob ugu jira sidii ay uur ku heli lahaayeen. Awlaadda Ilaahay baa baxsho. Waqtiyada xilliga ugxaantu aysan diyaar ahayn ayaa ka mid ah waxyaabaha inta badan dhakhaatiirtu ay sheegaan in fursadahaasi dadku ay isku beegaan, ama in waqtiga galmada qofka tirada galmada la rabo inay aad u yar tahay ama ay aad u badan tahay. Intaba waxa ay yareeyaan fursadaha uurka. Xalka dabiiciga, baro calaamadaha ugxan siinta, dheecaanka cad xilliga haweenku ay iyagu ku jiraan xilliga waqtiga ovulationka ama ugxaanta la soo daynayo, waa waxyaabaha ugu badan ee keena fursadahaasi. Haddaba samee galmo 2 ilaa 3 maalmood ka hor inta lagu guda jiro xilliga ovulationka. Sidoo kale isku day in waqti fudud aad qaadato. Bacriminta ma aha hal qodob oo keliya, waa isku dhaf jir, maskax, cunto iyo nolol maalmeed. Marka waxyaabaha yaryar ee markaasi aamusan aanu la dareemin hoos u dhiga fursadaha uurku, inta badan aad bay u tiro badan yihiin. Waxaana la doonayaa in lamaanuhu ay fahmaan bal qaabka ay iyagu ay cilladaha xagga uurka ka haysto ay ku ogaan karaan iyagoo la soconaya caafimaadkooda.